Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan idinka soo hadlaynaa waa janaalkeenii aan ku baranaynay koorsaha luqadda Ingiliishka ah. Waan idin salaamay dhammaantiin. Dhegeysi wacan. Caawa muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay ama feature-keena wuxuu ku saabsan yahay a dialogue between two girls. Waa sheeko gaaban oo u dhaxaysa laba ruux ama laba gabdhood. A dialogue waa sheeko between u dhaxaysa two girls, laba gabdhood. Dhegeysi wacan. Could you allow me, mi ogolaan kartaa abbaad wax ku saabsan something shay? Could you allow me, mi ogolaan kartaa abbaad wax ku saabsan something shay? And I want, waxaan doonayaa to know, inaan ogaado more, wax badan abbaad ku saabsan it shaygaas. Biya waxay dhahday never mind, waxba kama qabo. Biya waxay dhahday never mind, waxba kama qabo. You may query me, waa i weydiin kartaa. What is so important to you, waxa adiga muhiim ku ah ama dan ku ah, waa i weydiin kartaa. Even hataa you can ask me, waad i su'aali kartaa 100 of questions, boqolaale su'aalood, in case lacalla of need, haddaad u baahan tahay. And I can give you, waxaan ku siinayaa suitable response, jawaab habboon, with ay ku jirto my best knowledge. And I can give you, waxaan ku siinayaa suitable response, jawaab habboon, with ay ku jirto my best knowledge, aqoontayga aad u fiican. Well done, waa hagaag. What is veil? Waa maxay xijaabka? Veil waa maxay xijaabka? Ayaa la dhahaa xijaabka. veil, veil. B waxay dhahday all right, waa hagaag. Veil xijaabka is a piece of cloth, waa gabal ama cad yar oo mara ah, wun ay xirtaan. All right, waa hagaag. Veil xijaabka is a piece, waa gabal ama cad yar of clothes oo dhar ah, wun ay xirtaan by women, naagaha, or girls ama gabdhaha. Maxay u xiranayaan? To protect, inay isaga difaacaan, inay isaga ilaaliyaan their body, jirkooda. Is commanded, taasoo amray, waxaana faray by Allah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Well, waa hagaag. Can you give me, siin kartaa additional information, warbixin dheeraad ah about oo ku saabsan veil xijaabka? Well, waa hagaag. Can you give me, siin kartaa additional information, warbixin ama akhbaar dheeraad ah about ku saabsan veil xijaabka? Can you give me, siin kartaa additional information, warbixin dheeraad ah about ku saabsan veil xijaabka? Yes, ha. Listen to me, ii dhegeyso politely, si edeb leh. A veil xijaabka is a piece, waa gabal yar of clothes oo dhar ah, that is wound, kaasoo ay xirtaan. Veil xijaabka is a piece of clothes, waa dhar yar, waa cad dhar, that is wound, kaasoo ay xirtaan by women, naagaha, to cover, inay isaga daboolaan their face, wejiyadooda, or head, ama madaxyadooda ama madaxa, for religious, kaasoo ah xagga diinta islaamka. ilaah inaan qaadano wuuna faray ilaahay caza wajalla, qur-aankiisu nagu sheegay ilaahay. Veil xijaabka is loved, waxaa aad u jecel by Allah, ilaahay subxaanahu wa tacaala, wuu jecel yahay ilaahay wuu jecel yahay xijaabka inay gabdhaha xirtaan. Veil xijaabka is a piece of cloth, waa cad yar oo dhar ah, that is wound, kaasoo ay xirtaan by women, naagaha, to cover, si ay isaga daboolaan their face, wejiyadooda, or head, ama madaxa, for religious, xagga diinta ah, iyadoo la cugsan xagga diinta. waa amar ka soo baxa ilaahay caza wajalla. Veil xijaabka is loved, waxaa jecel by Allah, ilaahay subxaanahu wa tacaala, as to conceal, si ay u qariyaan, for their body, jirkooda. Girls, gabdhaha, must be faithful. Girls, gabdhaha, must be faithful, waa inay ahaadaan kuwa iimaan aad u leh, and be loyal, oo daacad u ah, to their wearing, xirashada ay xirneen of veil xijaabka. Women, naagaha, should not wear, waa inaysan u xiranin the veil xijaabka for ostentation, status, hal u arkale, hebel ay arkale, dhalinyaro ay aragtale, ma aha saas. Women, naagaha, should not wear, waa inaysan u xiranin the veil xijaabka. Women, naagaha, should not wear, waa inaysan u xiranin the veil xijaabka for ostentation,
status or fear ama cabsi ay ka cabsanayaan of men ragga, but laakiin tuwir inuu xirtaan id asaga xijaabkii for the sake of Allah ilah dartiis fi sabiilillah inuu xirtaan la rabaa. Please fadlan my sisters in Islam walaalahayay islaamka ahow, don't take ha u qaadanin si fudud ha ugu qaadanin. Please fadlan my sisters walaalahayay in Islam oo islaamka ah, don't take ha u qaadanina si sahlan the honor sharafta uu leeyahay of veil, xijaabka sharafta uu leeyahay macnaha si fudud ha u qaadanina. macnaha xijaabka aad u xagga iimaanka ku zaa'idinaya, adina waa asturantahay markaas gabdhaha inay cawrada banaanaada maaha, waa inay is asturaan. Nice to meet you, kulan wanaagsan. You also as well, adigana sidoo kale.